بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مدى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore suudaanka gudaha beesha Suldaan Axmed Suldaan Axmed sheekha wadanka Sheekh Cabdi Xaq taliyaha qaybta taliyaha asluubta xildhibaanada gudida awaaraha qaranka shacabka gobolka Hawd agaasimaha caafimaadka waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan aynu taaganahay goobtan aynu taaganahay waa goobtii Sheekh Cabdi Xaq loo dhisayay waxaana ay ka kooban yahay 6 balood waxaana ku tabarucay oo bixiyay aadan Cabdilaahi Xasan Allah khayr ha siiyo insha Allah taala waana dhagax dhig doonaa si degdegana waa loo dhisi doonaa cag bilaawe ayaa bixiyay dhulka sheekha loo dhisayo iminkana waanu dhagax dhigi doonaa sida ugu dhaqsaha badan insha Allah taala waa loo dhisi doonaa halkan aynu taaganahay sida uu maayirku sheegay waxa ku tabarucay aadan Cabdilaahi aadan cag bilaawe dadku u yaqaanaan inta badan manka gurigan iskale imanka ku xiga meesha isaga ku tabarucay waxa loogu tala galay dhulkaasi uu ku tabarucayna in looga dhiso sheekha guri cid xil qaaday inay dhistana waa deegaanka xil qaaday ashxaasta anagu sheegmayna laakiin deegaanka xil qaaday gurigan inay dhisaan taas waa ta koowaad ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inuu sida quruxda badan ee ugu dhaqsaha badan leh inuu dhamaado waxaynu ku xigsiin doonaa tan inoogu xigi doontaa dhagax dhigeeda xaruntii aynu ugu tala galnay in cilaajka loo sameeyo oo dadka lagu daweeyo ilaahay baa dawada hayee taana waynu ku xigsiin doonaa ya insha Allah taala aad iyo aad baa mahadsantiin sheekh mar walba waa soo dhaweyneynaa qalbi furan soo dhawaanu leenay alxamdulilaahi rabbil caalamiin وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان شاء الله تعالى سيجار iyo si guud waxaan u salaamayaa suldaanka guud beesha iyo maayirka magaalada caafimaadka asluubta iyo booliiska iyo dhamaan dhalinyarada halka ku soo kulantay u soo banbaxay inay gala qayb galaan hadiyada qiimaha badan ay guddoonsiiyeen tolkay ama ehelkaygii gaar ahaan aadam oo aan si niyada iyo si gaaraba ugu duceeyay gartay aanan weydiinin ama aan su'aalan orana dhul soo kaxiyo halka istaajiray halkan dariskayga noqonaysa dhulkana adiga iskale 6 balood waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala fardoos al-a'la guri ha kaaga dhiso ilaahay agtiisa subxaanahu wa ta'ala Allah kugu gudo saad u garatay garashadaadana arsaaqadana Allah ku waasay maalkaaga iyo awlaadaada iyo ehelkaagana ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ku barakeeyo maanta waa maalin khamiis ah maalintii ugu dambeysay ee xarunta cilaajka aan maartay soo gabagabeynay insha Allah ta'ala waxaan gudoomi doona hadana dhulka loogu talagalay xarunta cilaajka lagu tabarucayo ee umada guud ahaan Somaliland ama Soomaaliya iyo dad allaale ajaanib ay iman doonta iyagana sidaad hor bay noogu yimaadeen muslimiina halkaas insha Allah ta'ala uga baxaya waxaan leeyahay aad iyo aad bad mahadsantiin sallallahu alayhi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waxaan sii gali doonaa safarkii insha Allah ta'ala looba inaan sheego safarkii ahaa cimrada ayaan qaban doonaa kadibna Djibouti waan tagi doonaa insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa halka aan ku soo noqon doono ilaahay idinka insha Allah halkan taaganahay waxa weeyaan goob aan ugu tala galnay xaruntii guud ee cilaajka Sheekh Cabdi Xaq xaruntaas oo aan ka dhigayno Soomaaliland xaruntii Soomaaliland oo dhan dhul waxaan bixinay 2 baloog wixii kale loo baahdana diyaar baan u nahay waxaan ballan qaadaynaa dhulkaan bixinay inaan maca sharcigiisa raacino sharcigiisa dhammaystiran aan ku wareejino sheekh talabaad waxaan u sheegaynaa ummadda halkii laga tagi lahaa meel fog in ummaddu halkan isku iman doonto maanta halkan taagan waa cidla laakiin si ayaan dhow noqon doonto magaalo cad marka la dhiso cilaajka على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore day ilaahay baynu mahadnaqaynaa mar labaadka waxaynu mahadnaqaynaa xamse iyo
iyo cabdikariin oo aynu ugu mahadnaqayno dhulkan ay ku deeqeen dhulkan oo ay iyagu degaan ahaan bixiyeen oo yidhahdeen labada baloog ayaanu ugu deeqaynaa in laga sameeyo xarunta cilaajka aad ilaahay idinku bedel khayr qaba ilaahay idin siiyo ummadana ilaahay ku anfaco sidaa waa 90 mitir sidaana waa 110 mitir marka macal wadada lagu daro intaasay wareegiisu noqonaysaa insha Allah taala sidaanu isleenahay aynu rajaynayno in bayska hore ama deyrka qaybta hore ee deyrka deegaanku bilaabo sheekhuna uu dhamaystiro inta gudaha ku jirta masaajidka meeshii xaruntii cilaajka ahayd gurigii la seexanayay intaana insha Allah taala sheekhu dhamaystiro aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa oo salaamantiin alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadda iskale walaalayaal mar iyo marar aan la soo koobi karin waxay igu daray ehelka qiimaha badan garashada badan isiga iyo sharafta u saaxiibka insha Allah taala waxa igu qaateen waa inaan wato ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa taala maanta haddaan ahay saaxir ama nin qaa'ina dhulna ay maysa siiyeen imana soo dhaweysteen iska daaye waxa weeyaan waxa uu kala kulma shaydaan dad saalixiin iyo saalixada ayaan kala kulmi lahaa ilaahay subxaanahu wa taala waxaan ka baryayaa ilaahay subxaanahu wa taala sida ansaar nabiga sallallahu alayhi wasallam ugu duceeyay ilaahay subxaanahu wa taala anigana ducada Allah iga aqbalo gaar ahaan ay guud ahaanba ehelka waan u duceeyay iyo magaca guud ee reerkaasi uu la wadaago bahweynta reeshi isxaaq ilaahay subxaanahu wa taala ha barakeeyo waanan gudoomay waxaan hadli doonaa walaalaha ii gartay labada baloog dhulka labada baloog waxaan bixiyay mid anigoo Xamsa midna Cabdikariin Saciid baa bixiyay waxaan ku soo dhaweynaa sheekha Cabdi Xaq si uu magaalada deegaanka uu nolol deegaamoobo markii horeba waan sayno dad ehelada sahayn imankana seexana saasan soo dhaweynaa waan ku doonsiinay waan ku wareejin الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين لبدا بلوغ أنيقي حمسانو قرنay waxaanu u garanay bacdama aynu dadkeenna bukada way raadin in Ilaahay baa dawada haye sheekhuna dabibkiisa aad u jeclaysanay inaanu meesha loogu shaqayn lahaana aan bixino waanu bixinay ya kulli maanta waa maalin weyn Ilaahay baa mahadle hawl badan ma soo galay waa lagu soo guuray gobolka dad fara badan baa yimi oo dhow walba ka yimi dadka magaalada degan ciidanka bilayska gobolku isku tashaday ilaahayna nabadgelyo noogu dhameeyay sheekhuna dadkiisa uu duceeyay wuxuu qaban karay inuu qabto ilaahay ka jidaysiyo kulli dadka deegaanka odayaashiisa iyo waxgaradkiisu waa kaceen hawsha hadaan iyo gacanta qaban way nagu adkaan lahayd xaqiiqadii dadka guriyii baa looga baxay waa la dejiyay qof qura oo dayacaad sheeganaya ma jiro ciidanka bilayska asluubta anagoo iskaashanayna iyo dadweynihii deegaanku ilaahay nabadgelyo noogu wax dhibaato inama soo gaarin bismillah ala barakatuh waxaan ay adeegay ummadda u shaqeeyo uguna shaqeeyo inuu ku saacido quraanka kariimka ee kuwa iman doona halkan in la dhisi doona soo dhaxgali doona ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa taala cudur walba haya ilaahay inuu ka shaafiyo subxaanahu wa taala kuwa sixirna ilaahay sixirka kaga furo kuwa jinka u asiibay xasadka u weeranayna ilaahay kaga saaro kuwa isha xasadka iyo caynta iyo cawrida ku dhacdayna ilaahay ka shaafiyo dhammaan xanuunadu way fara badan yihiin waxa xanuun hayana Allah ka saaro subxaanahu wa taala ilaahayna ana carabkayga Allah u aqbalo amalkan ikhlaas Allah iga yeelo sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi